madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu dambeyntii u muuqda in uu si aan ka fiirsi lahayn u xoqday kaarkii uu ku bixi lahaa kadib daandaansi muddo socday oo uu waday. Farmaajo ayaa markii uu muddo xileedkiisii sharciga ahaa u dhamaaday bilaabay in uu samaysto muddo kororsi sharci darro ah oo dalka geliyay dagaal hor leh kaasi oo markii dambe uu si khasab ah uga laabtay. Tan iyo markaasi waxa uu Farmaajo bilaabay daandaansi siyaasadeed oo ka dhan ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo asaga loo igmaday in dalka uu ka saaro xaaladda kala guurka isla markaana loo igmaday arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka. daandaansiga Farmaajo oo marka ka sii dambaysa is soo tarayay ayaa ugu dambeyntii gaaray in uu Roble ka hor istaago inuu xafiiskiisa tago kadib markii uu soo saaray qoraal sharci darro ah oo uu shaqada uga joojinayo. tallaabooyinkii dambe ee aan ka fiirsiga lahayn ee uu qaaday Farmaajo oo ay ugu dambeysay midii uu awoodda ciidan ugu adeegsaday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa la rumaysan yahay in ay tahay midii uu isagu ku bixi lahaa. Farmaajo oo asagu aaminsan inuu dalka ku xukumi karo awood ciidan ayaa xilligan wajahaya culayskii ugu adkaa tan iyo markii uu dhamaaday muddo xileedkiisa waxaana bilowday abaabul cusub oo ka dhan ah rabitaanadiisa kaasi oo dib loogu soo noolaynayo ciidankii badbaado qaran ee kol hore ku qasbay inuu ka laabto muddo kororsigii sharci darrada ahaa ee uu samaystay. xogta aan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa in ciidanka badbaado qaran aysan markan dib uga laaban doonin ilaa madaxweynihii hore ay ka soo saaraan Villa Soomaaliya. falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa qaba in xiisadda hadda jirta oo Farmaajo ku baxayo maadaama uu si aan ka fiirsi lahayn u xoqday kaarkii ugu dambeeyay muddo laga indhasaabanayay ficiladiisa guracan. si kastaba waxa saacadihii u dambeeyay magaalada Muqdisho soo galay ciidanka badbaado qaran oo hadda ku sugan meel aan ka fogeyn Villa Soomaaliya oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.